kulanti wacan wanaagsan daawada ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka janalkana qodobada maanta ku keenan waxaa ka mid noqon doona dowladda Soomaaliya oo mamnuucday faafinta fariimaha xagjirka ee dagaalamayaasha al-shabaab iyo xarumo dhowr ah oo 40 gaaraya oo la xiray sidoo kale waxaa la soo gudbin doonaa wadaadkii xabsi guriga Muqdisho Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xayiraad hor ay ku soo rogtay dowladda federaalka kana joojisay isticmaalka baraha bulshada maadaama dhawaan uu si kula u weeraray dowladda federaalka si weyn u taageeray fariimaha al-shabaab ee dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada dadka macbuusleyda wasiirka xogeenka warfaafinta Soomaaliya oo la cadaalo oo shir jiraad inta si qabto oo si faahfaahsan uga hadlaya waxaa kale oo idin soo gudbin doonaa wiilkii dhalinyarada ahaa ee markaas ku dhacay god ku yaala deegaanka milxo ee gobolka Sanaag ka tirsan maamulka Puntland oo ugu dambeyntii lagu guuleystay in la soo helo meedkiisa kadib markii halkaas uu ka doonay dahabka markaas lagu qoto godka ku yaala deegaanka maamulka Puntland واسوق بدنا صاحب دولة أول كسو صارتي دحينها Soomaaliya wuxuu safar degdeg ah u ambaxay dalka Uganda geedka muxuu yahay waan isoo bedona qodobadas aan ku faahfaahin doonaa iyo warar kale caalamka diblomaasiyadda fadlan hadii aad noqoto marka hore subscribe kuna soo gambalka kana furo una sii share gareey saaxiibada meel kasta joogaan idinku kumatiga like inoo reebaya aad baad u maasantiin aan ku bilaawno dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mamnuucday isticmaalka baraha bulshada iyo faafinta wararka xagjirka ee la xiriira dagaalamayaasha ururka al-shabaab wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaa amro cusub ka soo saaray faafinta wararka al-shabaab iyo markaasi baahinta warbaahinada qaybaha kala duwan ee maxalliga iyadoo markaasi la xiray baro ay ku lahaayeen warbaahinta baraha bulshada wasiirka xogeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo shir jiraayad qabtay ayaa sheegay inay dambi tahay faafinta fariimaha xagjirka ee al-shabaab ee la baahinayo isla markaana tallaabo laga qaadi doono cidii al-shabaab ay soo dhaxmadiso fariimooda gaarka ah waasoo hadal ku dhigay wasiir Al-Cadaala wadankan lagama ogolo buuri inaad al-shabaab dadka u argagaxgeliso oo fariimahooda u soo qaado iyo fariimaha dadka markaas ay ku soo wargelinayaan haddii aad faafiso fariin al-shabaab tallaabo ayaa laga qaadayaa xulays ugu badanna wuxuu ku jiraa baraha bulshada ayuu yiri wasiirka xogeenka warfaafinta wuxuu soo kala sheegay in la xiray ilaa iyo 46 bar oo internetka ah oo markaas faafinayay fariimaha al-shabaab isla markaana sharciga la tigsan doono cidii lagu helo buuri inay fariimaha xagjirka al-shabaab ay faafinayso wasiirka xogeenka warfaafinta Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu socdo howlgallo xoogan oo markaas lagu xirayo baraha bulshada ay leeyihiin waxa uu yeeray argagixisada sida website-yada dhinaca kale waxaa la fahansan yahay in tallaabadan ay dowladda maanta qaaday inay ugu goleedahay wadaadka xabsi guriga Muqdisho Sheekh Xasan Daahir Aweys in uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu xaqdirsan ee markaas urdiimeedada oo si weyn fikirada al-shabaab ay ka weysameeyeen dowladda ayaana markaas xayiraad cusub ku soo rogtay wadaadka xabsi guriga Muqdisho Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xabsi guriga Muqdisho ku dhawaad 10 sano una xiran fikirkiisa inuusan ka tanaasulin afkaartiisa uu ku taageerayo al-shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys oo muddooyinkii dambe baraha bulshada kala hadlayay dadka doodaha badanaa dhaliya ayaa hadda tallaabo laga qaaday waxayna wararku ay sheegayaan in laga joojiyay adeegsiga baraha bulshada kana soo koobay xuriyadii ay hor u siisay nidaamkii dowladii madaxweyne Farmaajo wasiirka xogeenka warfaafinta oo la weydiiyay fariimaha Sheekh Xasan Daahir Aweys baraha bulshada ayaa sheegay inuusan jirin qof loo ogol yahay inuu argagixiso taageero ee markaas tallaabo ay ka qaadi doonaan arrintaasina laga beegsan doono oo aanay dib u soo noqon doonin arrintan ayaa kadib amro ay soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda oo ku saabsan inaan la baahin karin fariimaha al-shabaab lana xiro xarumaha ay baraha bulshada ay ku leeyihiin Al-Cadaala wuxuu sheegay in ay jiraan shakhsiyaad kala duwan oo magacyo kala duwan ku isticmaalaya hebel wuxuuna sheegay in markaas dhammaantood bay yihiin kuwa al-shabaab ku adeegaya wasoo hadal ku dhigay wasiir Al-Cadaala oo markaas shirkadiisa maanta arrimahaas ku faahfaahiyay waxaas dadka aad ula yaabeen in al-shabaab ay leeyihiin website markaas iyo soo kalante idaacado ay u gaar ah oo ku soo baahiyaan wararkooda sawirada codadkooda muuqaalada oo intaba warbaahinada qaybahooda kala duwan ay siyaabooyin kala duwan ee baraha bulshada loogu baahiyo waxaa kamid ah Soomaali Memo oo website ugu weyn ee al-shabaab ku soo daabacaan wararka iyo soo kalante arrimaha ku saabsan dagaalada iyo markaas qorshahooda ku aadan wararka iyo warbixinada ay dowladda ka qoraan soo kale waxaa jiro website ka liiraado ama calaamada oo asna kamid ah meelaha ay soo geliyaan codadka iyo muuqaalada iyo idaacad markaas wararka ay sii dayaan Andalus ayaa kamid ah meelaha sida weyn ay bararooda ugu baayaan ama wararkooda dagaalamayaasha ururka al-shabaab hase yeeshee intaas dowladdu ma aysan
awoodin inay xirto laga yaabay in markaasi ay dhanka internetka ay u adeegsato hase yeeshee dad badan ayaa aad arrintaasi ugu falceliyay baraha bulshada tan iyo markii saaka warka shirkadda raad ee cadaalad uu ku faahfaahiyey qaybihii hore jalka ayaa daawanaysaan saaxiibana haddii aad nagu cusubtaa subscribe noo sar gambalakana furo una sii sheergaray ee saaxiibadii meelkiisa joogaan idinkoo commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantiin markaan Puntland ayaan aadinahay deegaano ka tirsan maamulkaas waxaa tan iyo shalay markaas la arkay wiil aad u yar ama wiil dhalinyaro ah dadka deegaanka ka mid ah waa deegaanka Mixo markaas gobolka Sanaag ka tirsan in uu ku dhacay god aad u weyn oo markaas laga qoto ama markaas laga soo saaro dahabka oo inta badan ay dadku markaas ay isticmaalaan loona iibgeeyo wadamada markaas dibadda sida Imaaraadka Carabta iyo wadamo kale oo markaas si weyn loogu iibsado howlgalkan oo waqti dheer qaatay ayaa ugu dambeyntii lagu guuleystay in la soo saaro wararkan ka heega deegaanka Mixo ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in lagu soo gabagabeeyay dadaalo lagu baadigoobayay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed Saciid kaasoo shaqadii dhexe ee Khamiistii uu ku dumay god laga qoto dahabka kadib markii hadda la soo saaray midkiisa dadka deegaanka oo adeegsanaya qalabka ay heli karaan ayaa saacado badan ku qaatay qodida godkaas dumay waxaana ay sheegeen in aanu jirin cid maamul oo markaasi gacan u fiisay waa dhacdooyinka markaasi ka dhaca ama dhif inaadirka ah ka dhaca adduunyada oo markaasi si weyn loo xasuuqiis mid ka mid ah oo markaasi ka dhacay wadanka Morocco wiil aad u yar oo lagu magacaabo Rayaan oo asal markaasi ku dhacay god sidaan oo kalena ay qaatay baadgoobkiisa in markaasi uu guulaysto in la helo soo bixintiisana ama beedkiisana ay waqti badan ay qaato wadamaadka Soomaaliya ayaa la soo saaray tan waxay ka mid noqonaysaa dhacdooyinka markaasi jir records ee wadamada caalamka iyo soo kale gobolkaba ay diiwaangeliyeen markaan madaxweynaha Soomaaliya ayaan aadinahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu maanta u ambabaxay wadanka Uganda ujeedada safarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Uganda ayaa ilaa hadda si faahfaahsan loo ogeyn hase yeeshee warar soo baxaya waxay sheegayaan in uu markaas la kulmi doono madaxweynaha wadankaasi Uganda Yoweri Museveni waana mid markaas soo dejinaysa safarada madaxweynaha uu ku tagayo dalkaas Uganda iyadoo markaas xiriirka Soomaaliya wadamada diriskaana oo si hagaagayo marmar ka dambaysa madaxweynaha tan markii la doortay 15 bishii May 2022 uu markaas gurigiisa ahaa Soomaaliya heshiis la ah in wadamo badan oo diriska la ah Soomaaliya ay aad u kala fogeen ayadana ugu dambeysay safarkaad uu ku tagay wadanka Itoobiya Abiy Ahmed ayuu la kulmay oo kuma kala duwan soo qaatay warmurtida laga soo saaray arrimaha ugu weyn waxay ahayd iskaashi dhinacyada dhanka militariga la dagaalanka xaq jirka iyo sidoo kale sida iska kaashanaca xuduudaha Uganda safarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo u ambabaxay ayaana ilaa hadda wax macluumaad dheeraad ah aan laga helin hase yeeshee dadka bilada ku dhow ayaa inoo xaqiijinaya inuu tahay iskaashiga labada wadan taageerada dowladda federaalka ee dalka Uganda si markaasi dhinacyadu iska kaashan lahayn howlgallada dagaalka markaasi argagixisada wax loogu yeero wararka arrimaha gobolkan waxa ugu weyn Joe Biden madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa markaasi lagu soo waramayaa in uu markaasi qaaday siyaasad cusub oo si weyn u saameynaysa Soomaaliya Joe Biden ayaa dejiyay qorshe cusub oo wax loogu bedelay siyaasadda qiimaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya iyo dalal kale oo caalamka ka mid ah Biden ayaa amar ku siiyay saraakiisha ciidamada inaysan qaadi karin weerar xagga cirka ah oo aan la ogeysin aqalka cad marka laga rabo arrimaha gaarka sida marka ay halis gaaraan ciidamada Mareykanka ee ciidamada xulufada la shaqeeya sida uu faafiyay wargeyska New York Times madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa taliyayaasha ciidamada militariga awood u siiyay inay iyaga markaasi go'aan ka gaaraan cidda lala beegsanayo qiimaha iyaga oo gobolka markaasi lala fulinayo hase yeeshee Biden ayaa hadda qaatay go'aan ah in aan la fulin karin weerar aan ansixin loogu haysan aqalka cad taas oo macnaheedu yahay in qof kasta oo duqeyn la beegsado la soo socodsiiyo aqalka cad ee wadanka Mareykanka qorshe cusub oo uu dejiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa yimid kadib markii ciidamo badan ugu yimid qiimaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay dowladda Mareykanka ka fuliso wadamada Soomaaliya Yemen Iraq Afghanistan Syria Yemen sida lagu shaaciyay warbixin ay qoreen CNN New York Times madaxweyne Joe Biden ayaa jimcihii 7 Oktoobar wuxuu sheegay in sarkaal diiday magaciisa in la isticmaalo in qorshahan uu sar u qaadi karo howlgallada ay dowladda Mareykanka ka fuliso wadamada kale iyadoo markaasi laga fogaanayo waxyeelada dadka shacabka soo gaaraya
wararkii waaweynaa ee Soomaaliya caalamka kala socota channelkeena daawadaan waa naginta haddii aad nagu sabtaa ama kula subscribe noo saarkan balka faro una sii share gareeya saaxiibadii meelkiisa joogaan idinku kuma tiga like inoo ribayaan aad ku mahadsantiin